الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيسر إخوانكم في شبكة مركز السنة أن يقدموا لكم وقادك واحية هي سيجاركنا واحية هي لبضا مد ولبنا وحارانوي وشريعة كما بنان شريعة كما بنان إلا يعني السيجار لعبه إيه إن مركا قاضي لعنه. لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الكريم حسن حوش حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع إنه كهضينا وحاوكو سابسن هاي قادك السيجارك أشياء النوع سكراء، وإن مركا الإسكبو إياه والله إسكتشرا وأيو وقت المركا رمضانك يعني الروح المركا شعيلك أغبي أشياء داس ويرانيسا ما دام وقت بدن مركا أسوما أيو go-aankiisii casiimadiisii niyadiisina uu xoog bay yeelanaysa. marka fursadda caynkaas ah looga faa'iideysto sidii la isaga jari lahaa oo loo goyn lahaa qaadkiiyo sigaarkaba loo goyn lahaa. labadoo waa laba xun oo qaadku waa xun yahay, sigaarkuna waa xun yahay. labada mid walibana waa xaaraan weey oo shareecada kuma banaana. shareecada kuma banaana in la yani sigaar la cabo iyo in marka qaad la cuno. marka waa in la iska jara oo nafta laga gooya oo lala kaashada marka ramadaanta yani sidii looga faa'iideysan lahaa. xaraanna waxay ku noqdeen waa shay dhibaatadoodu ka badan tahay nafcigood iyo waxtarkooda haddayba nafci leeyihiin. waxa khamriga iyo khamaarka shareecada loogu xaaraantinimeeyey waa maxay? dhibtooda dheeftooda ka badan. qul fiihima ismun kabiirun wamanaaficu linnaasi wa ismuhuma akbaru min nafcihima. waatuu ilaahay uu yidhi markuu ka warramayey khamriga iyo khamaarka, markuu ka warramayey waxaa labadoodaba ku jira dhibaato weyn baa ku jirta. waxaa ku jira yani waxtarraa ku jira, dhibaato weyn baana ku jirta. dhibkoodaana ka badan yani dheeftooda iyo waxtarkooda. culammadu halkaa waxay ka qaateen qaacida sharciya, qaacidadaasoo odhanaysa maa kahura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam. waxa dhibtiisu dheeftiisa ay ka badan tahay shareecada islaamka xaaraan bay ku tahay. haddii shayga dhibaatadiisu ka badan tahay dheeftiisa, shareecada islaamka wuxuu ku noqonayaa shaygaasi xaaraan buu noqonaya. dhibaatooyin badan baanu leeyahay. waa midda koowaadee markaysagaa mid waliba waa khabiis oo waa xun yahay. wayuxarimu calayhim alkhabaa'is. nabiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu xaaraantinimayn jiray waxyaalaha khabaa'istee xunxun ayaa nabigu sala allahu calayh wasalam xaaraantimaynaya. khamriga iyo khamaarku yani waxa weeye waxay ahaayeen qaar khabaa'is ah, siday khabaa'is kuwaasi u ahaayeen bay kuwana khabaa'is u yihiin. waxayna culammadu qaataan maadaama marka waxa nabigu sala allahu calayh wasalam yani wayuxillu lahum alطayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaa'is, sifada nebiga maadaama ay ka mid tahay inuu waxyaalaha tayibaadkee wanaagsan uu dadka u xalaalaynayey, waxyaalaha markaa khabaa'istee xunxunna uu ka xaaraantinimaynayey, lana garanayo qaadka iyo sigaarku inaynay tayibaadka ka mid ahayn oo wanaagsanayn ay xunxun yihiin. dee waxay soo gelayaan khabaa'istii la xaaraantinimaynayay bay soo gelayaan. waa laga yaabaa dadka qaarkood oo aada ugu mamani inay markaa yidhaahdaan maya khamriga iyo khamaarka ayaa xune, laakiin qaadkiiyo sigaarku ma xuma. qaadkiiyo sigaarku ma xuma ee tayibaadkay ka mid yihiin. haddii la weydiiyo lagu yidhaahdo
dhibaatooyin maleeyihiin waxaa la garanayaa inay qirayaan kii caqli u saaxiiba dhibaato inay leeyihiin dhibtoodana maanta waa la isku waafaqsan yahay sigaarka nin sheekoo dhakhtarna ahaaba wuxuu ka qoray kitaab wuxuu u bixiyey masaa'ib addukhaan masaa'ibta uu sigaarku leeyahay wuxuu sheegay 99 xanuun oo laga qaado sigaarka ayuu sheegay hadda waa 99 markaasuu mid u tiri marka dhibaatooyin badan buu leeyahay gaaladii xataa waa ka qayliyeen oo waata marka waxa weeye meelaha qaarkood shirkadaha lagu khasbay inay ku qoraan digis laga digaayo sigaarka fakale waxa ku jira waxyaalo mukhadiraad ah ku jira nisba loo xadidaa oo la yiraahdo inta ha ka badanina waxa la yiri bahalka noocaas hadii la siyaadiyo la yara kordhiyo qadarka ay u xadidayaan oo ay leeyihiin point inta marka waa inay ka badan يعني waxa weeye qofka waa dilaysa hadii la badiyo waa qaatil garashadana waa tagsiinaysa waana dilaysa qadarka laftiisa hadii qofka xididka laga mudabaalay oo laga siiyo ma noolaanayo waa dhimanaya bali waxyaalo fara badan oo sababo kansarku kamid yahay waa jiraan yani waxyaalo badan oo xun waxyaalo badan oo cudurro oo khatar ah ayuu sababaya marka waxa sigaarka oo dhibaatooyin u leeyahay qaadkuna waa saasi leeg oo dhibtiisu waa ka sii fara badanta dhibaatooyin badan baa qaadku leeyahay oo xaraan ku yahay marka labada mid waliba waa khabiis hadii ruuxa lagu yiraahdo ma la jeceshahay qaadka iyo sigaarka يعني عرورتاadu inay cunto oo cabto ma la jeceshahay hablahaagu inay cunaan oo cabaan ma la jeceshahay hablaha walaalaha tiin inay cunaan oo cabaan ma la jeceshahay hooyada iyo eedooyinka inay cabaan waxa la garanayaa inay dadku markay isaga taas nacayaan oo waxay u yaqaaneen dumarka marka qaadka cuna iyo dumarka sigaarka cabaa inay xun yihiin bay u yaqaaneen wadannada qaarkood ragga iyo dumarku isku sibay marka u cunaan qaadka inta la soo qaato ayaa qowmiyadaha qaarkood sida Yamanta in badan oo kamid oo kale qaadkii intay soo qaataan ayaa dabad marka reerku qaybsanaya inanta inteeda la siinaya inanka intiisa la siinaya islaanta inteeda la siinaya odaygu intiisu la fariisanaya dabadna halkaas way iska wada cunaya sigaarkiisa si leeg waxa weeye qowmiyadaha qaarkood way wada cabaan mid Soomaaliyeed baa ku yiri waa maxay inantan markaysaa waxaan cunaysaa ee cabaysaa markaasay tiidinku ma cuntaan oo ma cabtaan markaasuu yiri ha markaasay tii bima farqta maxaad ku kala geysayo yani marka inantiina ugu diiday inankiina ugu ogolaatay wixii ama waxaad tiraahdaa waa waslaad xaraan oo xun oo waa in laga wada taga ama waxaad tiraahdaa waa wax wanaagsan oo yani marka tayibaad oo inan iyo inanba waa in la iska wada cunaa oo la iska wada cabaa marka taasi ala kulli xal waxay ku cadaynaysaa yani waxa weeye ruuxa marka qoyn xataa u doodaya ee daafacaya markaanu la jeclayn hablihiisa inay cunaan oo cabaan oo inamadiisa aanu la jeclayn inay cunaan oo cabaan oo ay marka qaraabadiisa ay la jeclayn iyo marka waxa khaasatan dumarkii oo kale iyo caruurtii oo kale yani waxay ku tusinaysaa in waxa weeye isaga marka jacaylka balwadani ay u jecel yahay in isaga ka asadiisay oo ka qaalib noqotay ee aanu marka ahayn mid ku qanacsan inuu wanaagsan yahay mid ku qanacsan inaanu ahayn dhibaatooyin fara badan qaadku waa leeyahay ilkuhu daadiya sidoo u galay waa aragteen maskaxdu kharibaya hurdadu tagsiinaya waalibu sababa yani waali ayuu sababa waa garanaysaan waxyaalaha marka khatarta u saab sheekooyinka yabaalka iyo ku saabsan waa maqasheen oo mashhuurka marka aad iyo aad looga sheekeeyo dadka aadka u cunaan ay marka sheegaan sheekada yabaalka iyo curriga ku saabsan ay yiraahdaan xalay oo dhan markaysa curri baan marka isla rafanayna waan mar walba isaga taagwaa
ومربى دبدو يقو أيس وحيالها النوع وحي عضينيسا نوع جنون يواليه إنه صابعي دخاتير تلفتود وكدقين آدي أيو قدقين روح هذه مركا مركا دكتور دخاتير تمسكح ذا اللوجي مسكح ذا كنت تخصصي هذه اللوجي ودواء قرة وحي كل دردار ما يوين قاعد لقى إلالية وحين يكون أرنيان حدو قاعد عنا دواداسي وحبا أطرميس حدو قاعد عنا دواداسي وحبا أطرميس كالكعبيتها وأرن المحقق نبوي مركا كوي عقلي لها أيابو والياي روح مركا يسيا مسكح ديسي خلال كل عين محاد في ليسا مركا وحوي قاد كوا دبات بديه خطروي يينا إذن كدين ضدك أرنا يا قاد كوا حلال ما هو حرام وحلقة يا بعضك قارين يراهدان يعني محل لغو حارانتين مين يا قادك يا سيجارك وإضاعة الماء وحلقو حارانتين مين يا وحيالة فربضا ومدى كواده حوله وضيع يا والمين حولها مركا إلا ضيعوا لغو إسرافانا مركا وحوي مضنانا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا هو حولها كله فرا وشياطين ولا لذو ويكره لكم ثلاثا حديث كلا صحيحة وعبو سارة يصدحوا إلى هيدا للنعية صدحوا دين كلا هي سنة يعني وحيين قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال حولها إلا اللومية والله ضيعه أي كمها ومد اللبادي عافمات هي السحادي بوحييرية هضيتها مسكحة هضيتها هددة هضيتها وحوية مركا إلكاء هضيتها وحوية مركا رايحة مركا ممتن وقرمون نواليه السيجار وضدك مركا السيجار كعبيني أرت النوع عاصر ويدبسنا يعني وكرهي سنة لكن برشاد وقف كان يلبرتي إو عادي يستي سيجارك يعني إستقوا مركا أرت النوع عاصر مدبسنا وحان مركا النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ملائكة وحي لبسطها وحي بني آدم كل لبسطه حتى مركو صلاة صدره وحوي ذاتك كحلقي مدو وحا لغو ابتلايي مويانا كوا كلا أردن ونعيان وانا لبسانيا وحانا لقا قادنا يا حديث كاس إن ملائكتنا لبسانيسو إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم حتى مركز صلاة الإيمان أيوه النبي صلى الله عليه وسلم وحى أمري وإن روح بصشة هي وحيالها لم يتكاعنا فلا يقربن مصلانا ما شأنه كنت كرين يا رؤوس دوان كبصشة عنو النبي سلاكي وبصشة وحيلا النوع أفقرمونا مركو بصشة بتصدقفكم بصشة هو حلال وبنانت هذا مع ذلك النبي يقول فلا يقربن مصلانا وسيدتك مركا وحيلته كان يا أين أكره هي سنة أولبسا واسعا ملائكته يقول لباتون بالله عليكم سيجارك يا بصشة كي قرمون بصشة النبي سيدا كيري هي سيجارك كيبا قرمون كيسو سيد دريا هدينك بصشة عنيلة يلي مركا يانو أسر دوان ميشانو كنتو كان إنها نقفو قادو وسيدا الويري والمحاد في ريسا كمركا وحوي مركا سيجار كعبا يعني مركا عنيل كسيجار كعبا المحاد في ريسا وحكم ذا وحيالها مركا دباتوين كمركا الصواباي يعني حنون نظف بدن مركا الشيغان دخاتيرته حنون نظف فرها بدن لا الشيغان دخاتيرته سيده ودن استاء سيده كانسر سيده حنون كلو لمد مركا دل ان دغدغ اهين بصابه الهينا وحول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما نفيه نهدل وحكروا إلهي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نفيه إن هلاكها كتورنا وحكروا النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار واحد نبلا إلى هذا مجفتو بمعنى نب إنا السميسان مبنانا وحيد نبا يا معد كالدرس